adiga xilliga aad timid Soomaalidu xataa way ku yarayd 97 oo taanga baraawo marka la soo qaaday xilli hore ahayd waxyaalihii aad xasuusatid oo dhibaatada kugu noqday marka halkan timid North Dakota ama cimilada ama bulshada maxaa kamid ah ka xasuustaa waa horta cimilada ay ahayd waxa ugu badan because anaga markaan imaanay Kenya ayaa waxaan aragnay dhaqankeena ahayn oo macnaha sideena Soomaalida siday u dhaqmaan iyo daris wanaajinta iyo waxaas markii Kenya aan imaad Kenyaatigan la degnayo haddana ani isbitaalan ka shaqeynayay ee Mombasa Hospital waxaan la shaqeynayay Kenyaati kala nooc ah markaas dhaqan gooni horta soo bartayo xilli waxaa timaadeen magaaladan wax ganacsiyo inuusan ka jirin oo ka heshaan hilib xalaalka oo kale ee ganacsiga hadda ka waran bulshada ku nool Fargo dhinaceeda Minnesota iyo dhinaca North Dakota wallahi hore u marnay hadda haddaan ku dhaho businessyada kaliya xalaal kaliya ma lehni oo Soomaalidu waxay leeyihiin meel baawur lagu sameeyo baawur lagu gado qaar ayaa real estate ah oo guryo gadgadaan qaar ayaa macnaha home care u furan yihiin qaar waxay u furan yihiin organizationno adeega noocyo badan ayaa kala socda hay-adiina idinku hadda marka laga reebo moolka aad dhisteen ma dhaqaale ayaad siisaan ama deymo loan ayaad siisaan ganacsiyada ee isticmaala businessyadiina mise dhammaan ganacsiyada Fargo areadeeda ka jira aad siisaan deymaha taraagyo badan aan la shaqeynaa jiro dad oo hadda taraagyo drive gareysto waxaa jiro maxaa la dhahaa xalaaliyo oon deen aan siinay oo marketka ku jirin marketka dhexdiisa dad deen u baahday oon siinaa jiro dadka qaarkood deen uma baahno ma ogtahay qof xinna saaraya deen uma baahno waa soo galaa xiniisu bilaabaya wixiisu iska qaadana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا إذا عدا كيزي YSLB iyo dhammaan channelska kala duwan ee aad nagala socotaan hadii ilaahay idmo barnaamijkan waa barnaamij cusub hadii ilaahay idmo waxaan ugu talagalnay inaanu ku wareysano dadka haldoorka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya gobolka Minnesota ilaa North Dakota ama dhammaan wadankan Mareykanka maanta waxaanu ku sugannahay gobolka North Dakota gaar ahaan magaalada Fargo waxaan rabnaa bal inaan u kuurgalno dadka Soomaalida ee ku nool magaaladan iyo gobolkan xilliga ay yimaadeen iyo bal hadda xaaladoodu waxay ku sugan tahay waxa caawa barnaamijka igala qayb qaadan doona hadii ilaahay idmo oo marti noogu aan wareysanayna Marwo Fawziya Cabdiqaadir Cadde Muuye waxaan ka wareysan doonaa bal hadii ilaahay idmo dadka Soomaalida Fawziya iyadu hadda waxa weeyaan madax executive director-ka hay'adda loo yaqaano Immigrants Development Center waxay deganeen magaaladan in ka badan dabcan 20 sano waa gobolka North Dakota ku soo dhawow barnaamijkan aan rabnaa inaan haldoorka Soomaalida ee Minnesota ama Mareykanka haddana waxaan joognaa North Dakota aan ku wareysanayno ku soo dhawow barnaamijka waxaan rabaa inaan ku bilaabo soo dhaweynta ka bacdi bal wax yar waxaan la wadaagtaa taariikhdaada halkan xilliga aad timid iyo soo gelitaankaaga ugu horeeyay gudahan xataa Mareykanka calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aadan ugu mahadsantahay maanta sida aad ii soo dhaweyseen iyo wareysigan aniga waxaan ku dhashay Muqdisho aan ku soo barbaaray waxaa middle schoolka aaday Yaasiin Cismaan waxaa kadib qaxootinimada waxaan imid Kenya waxaan ku sugnaa Utanga Baraabe ilaa la soo raray qaxootiga markaas aniga waxaa ahaa dadkii kow la keenay America waxaa kow laga soo dejiyay Washington DC marka waxaan joogay 6 bilood kadibna waxaan u soo gudbay North Dakota waayahay North Dakota maxaad markaa waxa la yiraahdaa waa meel aad u qabow maxaad North Dakota markaa ku dooratay maxaase ka xasuusataa noloshaadii koobaad markaa North Dakota timid maxaa ka qabsaday aad xasuusan kartaa North Dakota waxaan u imid aniga waxaa lagu soo dejiyay Washington DC meel aad nolol kulul oo aad u qaalisan
oo qofka markuu wadanka ku cusub yahay ay ku adag tahay. Marka waxaan go'aan ku gaaray in aan u soo gudbo North Dakota maxaa yeelay dadka oo ka imaaday qaxootiga oo Utaangabarawe ayaa qaar inta lagu soo dejiyay oo iyaga sheekeeyeen nolosha inay ka raqiisan tahay inta ama shaqooyinka ama fududahay meel gaaritaanka sida aad meesha u yar yahay qofka dhaqsidii ayuu wax kala baranayaa dhaqsidii ayuu baawur macnaha sidii loo wadaayo ku baranayaa dhaqsidii macnaha wixii way isgaargaarayaan. Marka markii la soo dejiyay waxaa lagu soo dejiyay Washington DC qofka cusub aad ugu wareera ma wax kasta way kala dheer yihiin rush hour baawurees daba taagan nolol cakiran. Marka anigana wadanka waa ku cusbanaayo waxaan raadinayaa si oo aan wax u barto ama aan isa soo saaro ama aan u shaqo tago. Shaqooyin waan ka helay Washington DC 7-11 iyo waxyaabo oo entry job ayaa laygu bilaabay anigoo markaa qaxootiga joogay u shaqeynaya Bishacas oo isbitaalka ka shaqeynaya oo isbitaalka Utaangabarawe anoo qof xishmad leh oo la xishmeenayo meel sare jooga aan ka soo tagay Kenya iyo inta markaa imaado waxaa la geliyay shaqo oo entry job oo ii qalmin. Marka waxaan raadinayaa si aan nolosheeda wax ka bedelo waxay igu qasabtay inaan imaado halkan guurna wuu i keenay. Marka odagayga markaas intuu joogay oo asaga idahaya inta imaaw nolosha inta aan ku qaybsano anna waxaan dhahay kaale Washington asaga wuxuu dhahay Washington adigaaba ku dhibaataysan aniga ma ku tirsami karo. Marka sida aawadeed ayaan u soo guuray December 21 1997 oo mar aad xaaladda ay u xuntahay ay tahay Fargo oo markaas waxaa flat ayaa ka dhacay biyo badan iyo maxaa la dhahaa baraf aad u badan oo dadka aad ay ugu dhibaatoodeen sanadkaas aan imid. waayahay waxaan rabaa bal xaaladda qof walba oo ka yimaada Afrika ama dhaqanka muslimka ama ku koray wadamadaas waxyaalo waxaa jira ama ku adag ama la yaab ku noqda marka uu yimaado North America. adiga xilliga aad timid Soomaalidu xataa way ku yarayd 97 Utaangabarawe marka la soo qaaday xilli hore ahayd waxyaalihii aad xasuusatid oo dhibaatada kugu noqday marka halkan timid North Dakota ama cimilada ama bulshada maxaa kamid ah ka xasuustaa? waa horta cimilada ay ahayd waxa ugu badan because annaga markaan imaanay Kenya ayaa waxaan aragnay dhaqankeena ahayn oo macnaha sideena Soomaalida siday u dhaqmaan iyo daris wanaajinta iyo waxaas markii Kenya aan imaad Kenyaatigan la degnayo haddana ani isbitaalan ka shaqeynayay Mombasa Hospital waxaan la shaqeynayay Kenyaati kala nooc ah markaasaa dhaqan gooni horta soo bartay oo wax yar macnaha waxaan bartay nooca wadamada kale ay u dhaqmaan because ani markaan ka soo tagay Soomaaliya horta very innocent ahaa mana ogeen xitaa inay jiraan dad aan muslim ahayn adduunka saasa macnaha qof dhunsana ahaa marka adduunka ileen markii qaxootinimada ay soo gashay wadankii burburay adduun iyo dad kale aan garanayna baranay ma fahantay. Marka dhaqan bedelka Kenya ku soo bilaabay oo fahmay macnaha inay jiraan muslim iyo gaalo iyo dad kale nooc ah markaasaan soo bartay. dabcan markii hore halkan waxaan ku nimi anagoo dhan qaxooti laakiin muwaadin baa la noqday American citizen baa la yahay adigii baa hadda dadka u adeega waxyaalaha aad isleedahay ma jira hadda waxyaalaha dadka u qabatid oo markaas ayaan lahayn magaaladan oo idinku hadda aad leedihiin tusaale ahaan ganacsiyadoo kale dukaamada marka xagee ka iibsan jirteen ganacsiyada sida xalaalka cuntada ah sida hilibka iyo horta hadda aadaan u horumarnay oo waxaa waaye dukaamo badan aan leenahay ugu yaraan 15 dukaan oo Soomaalida ay leeyihiin oo ay ku jiraan xitaa meel baawurada lagu sameeyo markaan koow nimid wadanka waxaan u doonan jirnay cunadeena siiba
Minneapolis ama Chicago ayaan u drive gareyn jirnay oo muslim deganaan jireen marka anaga imaanay 1996-97 ka waxa waay xalaal meeshaan ma jirin xalaalka ugu horeeya anaga noo furma waxaan u maleynayaa in 1999 ka la furay ama 98 kan ganacsiga hadda waa u gudbi doonaa laakiin marka iiga waran xaaladda Soomaalida halkan joogtay iyo dadka muslimka xagee ka heli jirteen cuntada freshka cuntada xalaasha cuntada xalaasha waxaan ka doonan jirnay meel ka baxsan Fargo Moorhead waxaan aadi jirnay Minneapolis ama waxaan aadi jirnay beeraha cadaanka xoolaha anaga soo qalan jirnay oo bisinka u qaban jirnay anagoo family badana inta israacno markaas cunno waxaan hilib waxaan keensan jirnay ilaa bil lahaynayo waxyaabaha kalena bariiska iyo waxaas waa iska heli jirnay burka iyo dukaamada caadiga Ameerikaanka waya waqti badan bay Soomaalidu hadda soo joogtay dabcan meelo fara badan horumar bay samaysay oo mararka qaarkood aad loola yaabo hadda hay'ad baa madax ka tahay magaceeduna yahay Immigrant Development Center wax badan baad bulshada u qabataa xagga ganacsiga haddaan ku hormaro xilli waxaa timaadeen magaaladan wax ganacsiyo inuusan ka jirin oo ka heshaan hilib xalaalka oo kale ganacsiga hadda ka waran bulshada ku nool Fargo dhinaceeda Minnesota iyo dhinaca North Dakota wallahi hore u marnay hadda haddaan ku dhaho businessyada kaliya xalaal kaliya ma lehni oo Soomaalidu waxay leeyihiin meel baawuro lagu sameeyo baawuro lagu gado qaar ayaa real estate ah oo guryo gadgadaan qaar ayaa macnaha home care u furan yihiin qaar waxay u furan yihiin organizationno adeega noocyo badan ayaa kala socda aada indhaha ay noogu furmeen inkastoo hadda waqtiga aan ku jirno aad Soomaalida caqabad culus ay ku socdaan laakiin hore ayaan u marnay anagana organizationkeena Immigrant Development Center waxaa ahayn organizationka ugu horeeya oo deenta bixiya marka waxaan sameynay deen oo waxaan sameynay yar oo la riba ahayn oo aan soo aruurinay wax yar oo markaasa sidiiba waxaa sameynay traagyada iyo wiilasha oo dukaamada leh ayaan deeman u furnay deemankaas oo keeneen in ay businessyo abuuraan magaalada wax baan ka bedelnay ilaa main avenue-ga dhan anaga haysano businessyo aan leenahay ka furan magaaladan dadka qaarkood way ku wareeraan dadka aanan aqoonin Fargo waxa la yiraahdaa Fargo waxay u kala qaybsan tahay laba daamood wax yarna la wadaag Fargo sida u kala qaybsan tahay iyo xagee dadku u badan yihiin ma dhinaca North Dakota u badan yihiin Minnesota maxaa u kala xada labadaas gobol horta anaga waxaan la Fargo Moorhead waa Minnesota border town waaye Fargona waa North Dakota marka Minnesota xukuumadeeda ay xukuumadda North Dakota laba xukuumad oo kala dhaqan gooni ah waaye kuwa Minnesota ayaa marmar noo fiican anaga oo badanaa Soomaalida familiadooda waxay degan yihiin Moorhead Minnesota degan yihiin anaga xitaa organizationkeena waa dual waxaan sameynaa Fargona waa caawinaa Moorheadna waa caawinaa laakiin inkastoo dhaqaalaha badan nooga imaanaya Minnesota because haddaa u fiirsatid North Dakota 100 sano gadaal u baxsan yihiin horumarka qaxootiga ma ogola iyo madowga iyo macnaha dadka immigrantiga ah iyo qofka midabka madooban leh ma fahanti way ka aad iyo aad ay ugu cunsuriyeysan yihiin Minnesota gobolka North Dakota isaga naftigiisa iyo South Dakota way ka duwan yihiin goboladan dad badan oo xataa Minnesota ku nool waxay ka yimaadaan gobolada marka maxaad is leedahay oo caqabadaha keena markay noqoto goboladaas in ay dadka immigrantska ah inay aan la soo dhaweyn maxaa keena halka gobolka Minnesota uu fahmay inay dhaqaale iyo horumar ay u keensadaan iyo shaqo
والله horta nimankan ay dhahaan conservative-ka amba republicanka ayaa waxay ku jiraan identity crisis macnaha waxay ogeen in adduunku uu isbedelayo waxaysan ogeen in gobolkan markaan nimid aan wax ka bedelnay oo annaga aan u shaqaynay ayaga wax soo saarkeena uu batay aan taxes badan bixinay cabsi baa ku abuurantay cabsida ay tahay dadkan amay nagu bataan oo annaga naga sii bataan macnaha haddaan nahay nimankan oo degan North Dakota marka cabsidiya waxay keentay in dhaqaalaha ay nagu cadaadin iyo inay dib isku celiyaan ma fahantay laakiin inkastoo ay hadda is-soo furfurooyin aan u imaado hay-adaada iyo waxa uu qabatid bulshada waxaan nooga warantaa hay-adaada Immigrants Development Center bal hay-adaada taariikhdeeda iyo waxa u qabataan bulshadan ku dhaqan labada daanba Minnesota iyo North Dakota reer Fargo hadda aan u shaqeeyo waxa la Immigrant Development Center waxaa magaca waxaan ku bilownay xitaa waxaan ku bilownay Somali Red River Center markii anigoo dumar ah hay-adda markaan bilaabay horta way ka dhaadhici weysay wiilasheena inta waxay dhaheen war magaca Soomaali ha naga qaadan naga daa because waxaa noqonaysaa naagta ugu horeysa oo Soomaali ku soo baxda markii haddana waxaa u bixinay Fargo Moorhead Economic Development Center tii haddana way nagu dheeraatay oo haddana waa soo yareynay Immigrant Development Center waxaan bilownay 2003 campaign-ka bilownay waxay noo suura gashay inaan helno 501c3-geena 2003 aan shaqada bilownay waxay noo suura gashay inaan helno 501c3-ga 2006-ka markaan bilownay waxaan lahayn group of fiscal agents noo ahaa oo West Central Initiative la dhahayo sidii marka uma baahneen 501 markii dambaan apply gareynay 2006-kii waxaan ku bilownay economy development waxaa focuskeena uu ahaa workforce iyo inaan businessyada caawino waxaan macnaha hore u marsiinay businessyada yaryar in magaaladeena waxaan furnay moolka ugu horeeya oo Soomaali ay hogaamiso oo hadda Soomaalida dukaamo yaryar haddii beri waqti aad leedihiin imaada sawir ka qaata dukaamo yaryar oo Soomaalida iska leeyihiin xalaal iyo maqaaxiyooyin iyo meel ay dugsi ku lahaadaan ayaan ka furnay meesha kadib horta anaga tartiib anaa dumar ah oo hay-adda waday orod badan kuma wadin xawligeyga wuxuu ahaa xawli aan aad u badnayn aana u dheerayn because haddaa dheereen tusisid macnaha inaa dhacdidaa laga yaabaa ma ogtahay xawligeyga si qiyaas u socday muddadaas aan shaqada wadayna hooyo ahaa ilmaan dhalaayay waana shaqaynay marka ilmahayga qaarkood xafiiskaan kusoo koriyay marka saan u dhalo waa wadaa xaggaan geynaa meeshaan wax kasta ku sameynaya diaperka ku bedelaya haddana cuntadooda ku siinaya shaqadayda meesha ka wadan jiray always budgetkayga waa keep garayn jiray adiga waan soo waday organizationka hadda waa 22 sano ayaan soo daadahaynay marka intaasna shaqaalo waa haystay intaasna xafiis waa haystay waxaas dhan budget iyo waxay qaataan qandaraasyo inaa heshid qandaraasyo inaa u keeno waan ku dadaalayay inkastoo aan dumar ahaa markaa dumar aad tahay wadankan horta waxaa jiro dhibaatooyin dumarka lagu haayo
haddaa madow tahayna wayba kasii daran tahay marka haddaa muslim sii noqotidna wayba kasii daran tahay marka markasta waxaa arki jiray wax kind of caqabo hordhigo cadaadiyo laakiin markasta waa ka boodi jiray waxaa raadin jiray si aan socodkaygana wuu badnaa codsiyadaydana meelo dhow ma gaari jirinoo ilaa Washington ilaa California ilaa meelal aad u badan aan lacag ka keeni jiray marka sidaa aawadeed ayaan buildingkan ku dhisnay annagaa iska leh waa kugu ammaanayaa horta inaad shaqada muddo aad tartiib u soo waday waana guul baa la oran karaa hay-ad intaas soo shaqaynaysay oo non profit ah ee waa aragtaa gobolkan hadda iyo dhibaatooyinka ka haysta ganacsiga iyo hay-adaha waaweyn ee dhibaatooyinka la kulma horta waa kugu ammaanaya dhawaan marban waxaan ka arkayay jaraa'idka qaar ka mid ah adiga oo ku dhex jira dad fara badan oo cadaana oo furaya suuq mool bal wax yar nala wadaag moolkaasi muxuu ahaa muxuu uga duwanaa kii hore aad suuq yar aad samayseen wallaahi adiga waxaa isticmaaloonaa maapkii aan isticmaalnay kii hore plankeena waxaa waaye in la helo meel ay businessyada yaryar ay ka awoodaan oyna ku kori karaan in lacag badan laga qaadin ijaarka because qofka markuu ka dhig haddii qofka uu xarqaanle uu yahay uu maanta 10 cambuur uu talo oo misha $5 loo keeno waa $50 maalintii marka waxaan fiirinaa annaga si aan u create gareyno space qofka maalintii $50 sameynaya oo bixin karo so waxaa isku keenaa wax la yiraahdo private and federal iyo state money taasna waxay u baahan tahay akhli waxay u baahan tahay horta inaad garatid dadka sidii loola hadlo iyo in aad qof furfuran oo dadka la dhaqmaaya aad tahay badanaa hay-adahaas waxaa fadhiya dad aad u waaweyn ama waxaa loo baahanyaa dhaqanka dadka oo ama state representative-kaaga iyo maxaa la dhahaa senatorka gobolka aad joogtid iyo inaa xiriir wacan aad la leedahay iyo federal senatorkaaga inaa xiriir wacan aad la leedahay sida kaloo bashaar oo kale xafiiskeeda important waaye ilhaam xafiiskeeda waa very important inaa aad la leedahay relationship oo aad markasta u tegaysid ama shaqaalaheeda aad la kulmaysid oo u sheegaysid arrimahaaga iyo meeshaad joogtid shaqada anaga ahayn non profitka waa communication haddii communicationkaaga uusan dheerayn shaqadaada way daciifaysaa markasta waa inaad isku toosnaataa oo qof micnaha dhaqan wanaagsan yahay oo adiga markasta adkaysi badnaatid oo xitaa haddaa adoo xumaati arkaya iska dhagatirtid oo tiraadid waxaan u socdaa ka weyn ma fahantay marka hadda horta waa dhameynay kan Fargo oo 35 business ayaa ku jirto oo waxaa ku jiro car dealer oo Ciraaqiyana oo Soomaaliya ku jirto oo Mexicana ku jiro aniga horta badanaa waxaan sameeyay inaan la shaqeeyo qaxootiga oo dhan inaan aan ku ekaanin hal laakiin deentayda waxay u badan tahay Soomaali sababtoo qofka Soomaaliga waa ka gorgoosan kartaa oo misaajka u ka xeey kartaa oo wax ku sii waayo waa negotiation aad dhaxmari kara ama waa ka cabaadi kartaa laakiin qof aadan ka seen hadaa lacag u dhiibati waa naxdin moogtahay sida ay ku soo noqon lahayd moogid marka waxaan iska ilaaliyay in deenta aan bixinayno aan horta ku koobo Soomaalida intaan ka koreyna because markaan korno hay-ad oo macnaha waxaan noqon karnaa oo bad credit-ka ku gudbinayso oo si kala kula dhaqmayso sida cadaanka oo kale laakiin hadda capacity-ga aan ku socono waa aad xawli aad u yar waay ma fahantay hay-adiina idinku hadda marka laga reebo moolka aad dhisteen ma dhaqaale ayaad siisaan ama deymo loan ayaad siisaan ganacsiyada ee isticmaala businessyadiina mise dhammaan ganacsiyada Fargo area-deeda ka jira aad siisaan deymaha taraagyo badan aan la shaqeynaa jiro dad oo hadda taraagyo drive gareysto
waxaa jiro maxaa la dhahaa xalaaliyo oon deen aan siinay oo marketka ku jirin marketka dhexdiisa dad deen u baahday oon siinaa jiro dadka qaarkood deen uma baahno ma ogtahay qof xidhno saaraya deen uma baahno waa soo galaa xinihiisu bilaabaya wixiisu iska qaadana qof dhar tolaayo deen uma baahno maamooyinka oo xijaabyadii gabasaaradii diracyada gadana ayaga xitaa waxay ku nool yihiin qofaa usoo diro way gadgadaan way sii gadaan ma fahamti ayagana deen uma baahno aniga xitaa ma jecli inaan saaro culeyskaas markay dhahaan deen isi indhahoodaan fiiriya war deen ma u baahan tahay because deenta sideedaba waa murugo badan tahay qof lacagtiisa haysataa waa ku murgee war goormee kaa baxee adigoo dhan maskaxdaada masku toosna laakiin deenta waxay ku fiican tahay qof oo wax xooli ah shaqo xooli ah wado sida ama qof maqaaxi iska leh ama qof oo maxaa la dhahaa iska leh xalaal ama qof track drive oo ah oo lacag fiican soo saarayo deenta soo gudi karo marka waxaa isku daynaa in deenta aan dhigno meeshii loogu talagalay waayahay marka laga reebo barnaamijkaas ama programkaas loaniska hay-addiinu maxay kaloo qabataa aad u qabataan bulshadan degan magaaladan waxyaabo badan aan qabanaa horta qofkii shaqo u baahan waa kala shaqeynaa macnaha resumeygii shaqadii sida loo apply gareyn lahaa iyo waxaas oo program oo qandaraasaan u haystaa deentana waa bixinaa qandaraas kale oo aan haysano waa markaad permitka heshid haddaa rabtid in lagu baro sida baabuurka loo wado waa kaa bixinaynayo baabuurka ilaa ka baratid wadanka haddaa ku cusub tahay ilaa aad ka heshid driver licenkaaga waxaa kala sameynaa training oo aan la shaqeyno technical college-ka haddaa rabtid inaad truck driver noqotid sidii lagu heli lahaa ama haddaa rabtid inaad welding baratid ama electricity ama nursing assistance waa kaa bixinaynaa $5,000 ilaa adiga aad kasoo baratid waxaas isagana qandaraas gooniyaa u haystaa oo marka qandaraas kastana shaqaalo gooniyaa u haystaa gobolka North Dakota aqoon fiican uma lihi laakiin dad badan waxay yiraahdaan shaqooyinka way ku badan yihiin ama deegaankan ilaa iyo ama goboladan ay republicanku xukumaan badanaa waxaa la yiraahdaa shaqooyinku way ku badan yihiin laakiin caawimadaha kala ku yar marka inta badan idinku marka dadka shaqo la raadinaysaan xagee shaqooyinka badanaa uga dirtaa mise labada daanba dhinac walba Fargo mooreheed badanaa Fargo ayaa shaqooyin badan hayso ilaa 12 company ka taagan oo company waaweyn Amazon ka mid ah Marvin uu ka mid yahay Marvin glasses ka soo saar miraayadaha baabkaada joogo CNH kuwa la yiraahdaa joogaan waxaa jooga Fargo Assembly Dakota INC waxaa waaye kulligood waa shaqo xamaaliya marka qofka intuu cusub yahay ma dhibayso shaqo xamaaliya laakiin badanaa waxaa ku dadaalnaa markay 2 sano 3 sano joogaan si aan ilbaabo kale ugu furno because xamaaliga haddii aad ku sii daahdid korjaja buu leeyahay dhabar xanuun uu leeyahay qofkiyo macnaha adiga badanaa that's why aan trainingka aan kuu sheegay technical college-ka aan xiriirka la leenaa u sameynaa macnaha waxaan ka shaqeynaa in gabdhaheena CNA ay noqdaan ama nurses u gudbaan si ay heer u gaaraan ama income oo fiican u soo galo iyo shaqooyinkan dhabar xanuunka badan oo maanta oo dhan aad taagnaanaysa 12 saacadood waa shaqooyin aad iyo aad bahdilitaan ay u leedahay inkastoo anagoo og waa weli waa u sii raadinaa ilaa qofka wuxuu u baahan yahay qutulyoon laakiin qutulyoonka haddii laga soo baxo anaga dadaalkeena wuxuu sii socdaa horumarin iyo qofka inuu lahaado nolol ka fiican tan oo qutulyoonka ah dadka hay-adaadoo kale ka shaqeeya dabcan waddankana muddo badan joogay waxay fahmaan jobka marketka waxay fahmaan aqoonta waxa la barto waxay kaloo qiimeeyaan dadkooda dad badan waxaa la yiraahdaa sababaha
soomaalidu ay shaqooyin fiican u heli waayaan waa iyagoo aan aqoon lahayn ama aanan baran shaqooyinka farsamada ee lagu helo shaqada ama electric oo kale ayaan baran ama ay waxyaalaha baran marka haddii aad hadda dhalinyarta Soomaalida aad fariin u diri lahayd inay dugsi farsamooyinka technical college-ka ay wax ka bartaan si shaqooyin wadankan marketka u heli karaan ama cilmiyada ay aad u bartaan maxaad oran lahayd waa qofka Soomaaliga ah uu ka aqli badan yahay average person ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu noo dhaliyay inkastoo hadda sidaan wadanka u nimid aanan fahansaneen waxa socdaan because cuntadii aan cunayna miya ilmaheena ma u dhalanin sidii annaga aan u dhalan ma garat waxaa laga yaabaa inay tahay bii'ada aan ka nimid aan cuntada aan cuni jirnay in uu ka maqan yahay cuntada aan inta aan ku cunno vitamiino ay ka maqan yihiin qofka Soomaaliga ah hadduu baadiye ka yimaado hadduu iskuul fariisto wax buu baranaa waxa aaminsanahay waaya maxaa marka naga qaldamay halkan oo dadka u fahmi laayeen waxyaalaha qaarkood inay bartaan si shaqooyin uga helaan wadankan marka la fiiriyo dhalinyarta faraha badan ee darawalada noqonaya iyo waliba qoysaskeena magaalooyinka uga tagaya waxa la yiraahdaa dadku inay wax bartaan shaqo farsamooyin la barto local la joogo maxaad adigu arinta say u aragtaa maadaama dadka community-ga la shaqeeyay wallahi horta truck driving waa fast money inkastoo hadda suuqa uu dhulka soo galay qof truck driver ah oo baawurkiisa asaga iska leh bishii 8,000 nadiif u sameyn kara oo markuu taxes bixiyo gas bixiyo hoblo hadduu qof xoog u shaqeynaya yahay ama xitaa haddii shaqaale uu shaqeeyo 8,000 bishii soo saaran kara way ka fududahay inaa hadda 5 sano intaan school fariisto iyo naag iyo ilmo ay sugayaan waxaa ka fudud inaan highways iska koro 8,000 keena guriga moogtaa marka Soomaalidu waxay truck driving ugu badan yihiin waxa waaye waa lacagta iyo shaqo aad u riski badan waaye waa adigoo naflacaari ah moogtaa haawayadan markii winterka imaado ilaaha gacanta u taagan ilaahu Soomaalida badbaadi because ma aha highway kaliye barafa hadana ku taxaabano baawurku iska sii socona asaa socdo asaa ku wado markaas iska socdaan ilaa meesha ay aadayaan markaas qalbigu ku xanuunaya odagayga truck driver mana ka celin karo laakiin waa cabsi waaye waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo haddii hadda qof barnaamijkan daawanayo deymaha ama loanska la bixiyo magaalooyin kale way ka jiraan laakiin aad bay u adag tahay processka la mararka qaarkood aad bay u adag tahay in qofka uu ku helo lacag deyn ah still ma bixisaan wali lacagtaha deynta ah hadduu rabo qofku inuu ganacsi furanayo xageesa lagala soo xiriiri karaa hay'adaada deynta anaga aan bixino waxay ku eg tahay goboladeena inta Fargo Moorhead Minnesota laakiin haddaa ila soo xiriirtid kuwa kale oo aan isla shaqeyno gabar aad u fiican oo hibol lahaaya jirto oo Propel u shaqeysa iyada xitaa in la xiriiro waaye gabar aad u fiican waaye oo Soomaalida horumarkooda aad u rabta aniga intaan joogaa haddaa Moorhead joogtid waa ila soo xiriiri kartaa cidda u baahan emailkayga waxaa shaashada ku soo qora telefoonkaygana soo dhiga ma ka xumi inaa qof Soomaali ah telefoonkiisa ka jawaabo Soomaalida waa aragtaa hadda hadal baad hadda ay tiri aad u muhiima wax badan baa socda wadankan dadba kayaguna ma fahmayaan inta badanna ma fahansana waxa hadda wadankan ka socda marar badan waxaan aragnay hadda Minnesota ganacsiyo ay leeyihiin Soomaalida in aad loogu daba jiro dad badanna dambiye loo qabsaday adigu aragtidaada maxaad oran lahayd dadka ama hay'adaha non profit ka rangareeya ama haysta contractiyada dawladda kamida waxyaalaha hadda dawladdu ku qabsato maxaa tala siin lahayd muddo dhowr iyo 20 sano ayaad waxaad ka dhex shaqeynaysay hay'adaha dawladda xogtan wadankan waa haysa xaaladdan si u socoto wada aragtay gaar ahaan Minnesota maxaa tala siin lahayd dadka
wallaahi aniga taladeeda ugu horeysa horta aniga meel republican joogo ayaan maxaa la dhahaa organizationkayga uu ku soconayay moogtahay marka always baaritaanay kugu hayaan indhahay kugu hayaan marka horta soomaalida wax yar fudeedaa nagu jira anaga moogtahay waxaa loo baahan yahay qofka inuu ahaado qof qunyar socod ah kow tan labaad rasiid kaste waa inaa haysaa ilaa 5 sano sanad kastana waa inaa adi is aaradgaraysaa ha sugin in lagu aaradgareeyo hayargareeya company ani waxaan sameeyaa sidaan u bilaabo shaqada ilaa hadda sanad kasta anaa is aaradgareeya company-a hayargareeyaa 10,000 iyo heehayaan siiyaa aniga bugaagteedaa la baaraa wixii qalad ah laga baaraa anaa isbaaro anaa is xisaabinaya marka in macnaha haddii ilaahay uu qiimo ku siiyo oo ama xil ku saaro inaa xilkaaga si toosa u qaadatid aad fududaanin oo aad isdhihin haye hadda waa meesha ka wad in aad is xilqaantid oo is ilaalisid oo macnaha hadda Amerikaanku waxay sameeyaan kambaniyaan anaga hadda inta aan joogo kuwa waxaa jira kambaniyaan 11-12 milyan sanadkii soo galaan ama 20 millions ma fahant laakiin waxay sameeyaan hay-adda qofka ugu sareeya si fiicana loo pay gareynaya ama 300,000 sanadkii ha noqdo ama 200,000 adi is pay garee si fiican isku pay garee kadib wixii kale shaqaalihii lagu diray inaad hayar gareysid hayar garee howlihii lagu diray sida lagu diray u sameeyo rasiityadaadana meel dhigo inaad maskiin tahay oo wadanka aad u dhalanina ogaaw isfahan is ilaali agtaada meesha dhigaysid because marka ilowdid ina istira okay citizenshipkii aad soo qaatay wadankana kamid ah kama mid tihid wili maadan gaarin sug cagaha dhulka dhig nin waxaa tahay maskiin ah oo hadda soo galay xitaa 20 sano haddaan joogno anaga wili qof wadankiis ka tagayana marka intii aan ka koreyno oo aan xidido waaweyn meesha aan ku lahaanayno waqtiga noo dhiman inkastoo heerka Soomaalida ay maanta gaartay ay ka sareyso qaxootiyada nala yimaadeen oo dhan xitaa man community marka u fiirsatid waa second generation dadka hadda office-yada fadhiya hooyooyinkood xitaa isku madayn annaga laakiin our first generation waxa hore u socday do you understand ma fahante marka waxa waaye Soomaalida waa inay is ilaaliyaan ilaalinta ma aha ina is xasdaysid waa maxay dhahaan reexa marta agtaada meeshii dhigays ilaali ma dhaha ina is ilaalisid waaye oo macnaha oo ka fiirsan wadankaaga ma aha meeshan waa lagu xasuuqa hadaa is dhigtid magaaladan hadda dad badan baa degan waxaan oran lahayd bulshada reer Fargo waxaan maleynaa idaacada iyo media xagan hadda kama jiraan waxaan jecelnahay inaan community-ga ama bulshadeena aan la shaqeyno maxaa fariino u dir lahayd bulshadan aad u adeegtid iyo dadkan aad u shaqeysaan wallaahi horta dadka oo gobolada yaryar degan waa dad ilaahay isku soo diray Soomaalida sidoodaba markay tuulo degaan way ku waashaan wax yar mar waxaan is dhahnaa malaha dadka oo Minneapolis deganaa naga roon tuulada dadka degan ayagaa isku mashquula in qalbiga ay isku furaan oo isku roonaadaan oo isla shaqeeyaan is xishmeeyaan ayagaa dan ugu jirto laakiin waxyaabaha ani ama marka qaarkood aan ka qajilo waxaa waaye markaa arko qof Soomaali oo ani iimaan karo idhi kara Fawziya waxaan kaale iga sax waxay u tagayaan qof kale oo aniga xitaa idaamin markaas qalbiga waxaan ka dhahaa wallahi maalinta hadaa iimaan lahayd wax fiican ha baran lahayd laakiin anaga ilaahay nus keen soo diray subxaanallah waxyaabaha iga yaabiyo waxay ka mid tahay uqdad gooni ah iyo khabiil gooni ah iyo waxyaabo aan loo dirsanin adiga haddii wadanka aad timid oo cadaan aad la shaqeynayso oo madow aad la shaqeynayso oo indho yar aad la shaqeynayso maxaa kuu diiday in qof walaalka Soomaali ah aad la shaqeysid
marka waxaa jiro in qalbiga laisku furaa fiican ama saasaa heer ku gaarayna haddii kale aniga sideedaba kali socda ahay because waxaan bartay inaan kali socdo anoo yar sideedaba shaqadeeda iyo mashquulkayga iska galaa dadku ma mashquulo oo dadka ma soo dhex galo oo taydaaba iskaga ilaahay ugu mashquul hooyaa tahay waxaan rabaa su-aasha ugu dambeeya hooyooyinka waddanka ku nool waxay wajahaan gaar ahaan dumarka Soomaaliyeed muslimka ah dhibaatooyin kala duwan xagga shaqo raadinta xagga waxbarashada xagga guriga qoyska naftigiisa caruurta mararka qaarkoodna saameyn jireed iyo maskaxeed ayay dumarka ku sameeyaan marka hay-adiina wax barnaamijyo ma u samaysaan dumarka gaar ahaan kuwa ka caawinayo walbiinkooda ama caafimaadkooda maskaxeed ama sixtaba noqotay maxayse kula tahay situationka hooyooyinka Soomaaliyeed ee hadda Mareykanka ku nool gaar ahaan horta hadalkan haddaan dadku amay waxaa ma ogtahay Soomaalida qaarkood waa dadka oo waxaa lahaa dadka miirkooda toosneen oo dhaqma dhibaatooyin badan ay soo mareen qaxooti badan trauma badan ay soo mareen xitaa qofka oo Soomaali Kenya xitaa trauma uu soo maray Soomaali Ethiopia waa isku dhex qasanaay moogta ilaa Soomaalidii soo qaxeen kaliya ma ah kuwa hadda America jooga waa isku dhex qasanaay marka subhanallah Soomaalida waxba tareera soo maray kaligood aloogeen ma faad marka horta waxaan sameynaa one on one mental health project oo laakiin kaliya dadka oo cusub oo hadda soo galeen aan u sameyno guryaha ugu tagnaa projectgaas qandaraas yar waaye oo hadda dadka soo degana agteena waxay u badan yihiin Koongoliiska oo wiil Koongoliisa ay shaqeeyo oo tagtaga guryaha ma garata laakiin Soomaalida horta Soomaalida dadka adduunka ugu qurux badan waa mana ogaan madownaanta adduunka ugu macaan waa mana ogaan hadda waxaabna soo wajahi doon dhibaatooyin kale oo kansar aan la aqoonin iyo kareemooyinkan iyo waxyaabo badan nagu soo wajahan oo wili anaga dhibkiisa aan wili arkin in laga wacyigeliyo dadka korkooda bedelayo aad korka ugu macaan adduunkana haysta ka war taasa ani iga yaabisay madownaanta ilaahayna siiyo waa maariin casaan galay waa waxa aan la helayna xataa lama soo gadan karo cadaanka xadda qoraxda isdhigaan inay helaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga dhigay also dad oo homogeneous brain waxaa nagu yaalo ninka Soomaaliga computerka tusi hal beri maalintii labaad geeska gees asaa ku tusinaa ilaahay wuxuuna siiyey nicmooyin aad u badan oo anaga aan diidanahay inaan ogolaano waxyaabo aan macno lahayn jir kalarkiisa la bedelayo xidido soo baxbaxay niyo cudurrada soo socda ani ka naxsanahay iyo hooyadaas say ilmo badan u dhale haddana ilmahaas say maskax u lahaan doonaan su-aasha aniga qaba waa intaas waa wacyigelin hadda in la bilaabo oo laga hortago aaday u socotaa oo waxaaba laga dhigay casri in naagta ay iscadayso waaba casriga cusub maxaa anaga cadaan ka rabnaa isha waxaan ka rabnaa ilaahayba nooma siinine sababta u raadineen maxay why xitaa haddana why do we go heer korkeena maqaarka dhan uu siibmo taasa aad dabcan waa arrin u baahan in wacyigelin badan laga sameeyo dad badan waxay yiraahdaan dhimashada degdega mararka qaarkood waxaa aragnaa gabdho yar yar gaar ahaan kuwa mararka qaarkood baraha bulshada la isticmaalo la yaqaano oo gabadhii si degdega ay ku dhimanayso kansar ku dhacayo nabaro jirka gudihiisa xaga caloosha ka soo baxayo dadka badankii dhaqaatiirtu waxay la xiriirisaa waxyaalaha ay dumarka isticmaalaan xataa social media xataa waxaad moodaa maskaxahan inuusan u fiicnayn dadka aad iyo aad baan rabaa inaan kaaga mahad celiyo barnaamij aad u qurux badan xigmad iyo xog badan ba aad nagu siisay waanan jeclahay insha Allah barnaamijyo badan oo kale
inaanu isku xog waraysanno haddii ilaahay idmo aad baan kaaga mahad celinayaa Fawziya barnaamijkan aad nagala qayb qaadatay maanta aad ayaa u mahadsan tahay thank you maantay waqtigan ay siisay and anytime abo haddaa isoo wacdid I will be there ayahay waxaan rabaa inaan sidoo kale aan u mahad celiyo saaxiibkay Ilka Case iyo Daahir oo iyaguna barnaamijkan qayb weyn ka qayb qaatay insha Allah waxaan rabnaa barnaamijyo badan inaan idinka soo sameeyno dadka Soomaalida ee ku nool North America inagoo booqan doona haddii Ilaahay meelo kala duwan intaan ku kulmi doono barnaamijka ku xiga waa anigu Axmed Laariye dhammaan tiimka iyaga oo idin leh sidaas iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh